Irbadaha dhimista miisaanka waxa ay tahay inaad ogaato ka hor intaadan isticmaalin Ozempic iyo Ro. Irbadaha dhimista miisaanku waa isbeddelka hadda jira ee miisaan lumis caafimaad waxaana si gaar ah u tixgeliya dadka aadka u cayilan. Laakiin ka hor inta aan la go'aansan in la bilaabo daaweyntan oo kale, waxaa muhiim ah in la ogaado dhinacyada sharciga, caafimaadka iyo dhaqaalaha. Maqaalkan waxaad ku baran doontaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato irbadaha miisaanka lumay iyo haddii iyo sida aad uga iibsan karto Jarmalka. Tilmaamaha akhriska, Ozempic, Wegovy, Ro, xukunka Stiftung Warentest ee ku saabsan irbado miisaan dhimis. Irbadee miisaanka dhimista ayaa laga heli karaa Jarmalka. Jarmalka, 3 irbadood oo miisaan lumis ah ayaa hadda loo oggolaaday daaweynta dadka aadka u cayilan ee aan lahayn sonkorowga. 1. Wegovy semaglutide. 2. Mounjaro tirzepatide 3. Saxenda liraglutide. Daawooyinkani waxay ujeedadoodu tahay in la yareeyo dareenka gaajada oo sidaas awgeed awood u yeelashada miisaan lumis muddo dheer ah. Si kastaba ha ahaatee, dhakhaatiirtu waxay kaliya u qori karaan irbadahan dadka leh index of mass index BMI ee ugu yaraan 3 eber, ama leh BMI 2.7 ama ka badan haddii ay jiraan sidoo kale cudurrada la xidhiidha miisaanka sida dhiig-karka. Carruurta dadoodu tahay 12 jir iyo ka weyn oo miisaankoodu yahay ugu yaraan 6 eber kilogaram ayaa sidoo kale laga yaabaa inay u qalmaan daaweynta xaaladaha qaarkood. Qiimaha iyo helitaanka irbadaha miisaan dhimista. Qodob muhiim ah marka la go'aaminayo irbadaynta miisaanka luminta waa qiimaha. Maadaama daawooyinkan loo kala saaray sida habnololeedka, shirkadaha caymiska caafimaadku inta badan ma bixiyaan kharashyada. Taas macnaheedu waxa weeye in aad jeebkaaga ka bixisid kharashka daaweynta. Si iradu ma aha kuwa muhiim ah. Wegovy wuxuu ku kacayaa ilaa 172 euro qalin horey loo buuxiyey oo leh 4 qiyaasood oo ugu xooga yar. Mounjaro waxay ku kacaysaa qiyaastii 260 euro 4 qiyaasood, taas oo ku filan 4 toddobaad oo daaweyn ah. Qiyaaso sare ayaa la mid ah kuwo aad qaali u ah, taas oo daaweynta ka dhigaysa mid dhaqaale ahaan adag dad badan. Kharashyadan qaaliga ah awgood, dhakhaatiirtu waxay marmar u qoraan daawada sokorowga Ozempic, taas oo ka jaban laakiin si rasmi ah loogu oggolaaday oo keliya daaweynta macaanka ee Jarmalka. Bishii Luulyo 2023, Maxadka Federaalka ee Dawooyinka ayaa mar kale caddeeyey in Ozempic loogu talagalay kaliya dadka qaba sonkorowga. Si kastaba ha ahaatee, dhakhaatiirta qaarkood waxay u qoraan calaamad ka baxsan bukaanada aadka u cayilan, laakiin tani waa muran ku saabsan ficil ahaan sababtoo ah tani waxay xadidi kartaa helitaanka bukaanada sonkorowga dhabta ah. Ma iibsan kartaa irbado miisaan dhimis ah? Jawaabta fudud waa maya. Irbadaha dhimista miisaanka sida Wegovy, Mounjaro iyo Saxenda waxay u baahan yihiin warqad dhakhtar. Tani waxay ka dhigan tahay in kaliya uu dhakhtarku qori karo kadib marka uu qiimeeyo xaaladaada caafimaad. Sidaa darteed suurtogal ma aha in si sharci ah loo iibsado saliingadaha iyada oo aan warqad dhakhtar lagu qorin farmashiyaha ama internetka. Tilmaamaha akhriska, Ozempic, Wegovy, Ro, xukunka Stiftung Warentest ee ku saabsan irbado miisaan dhimis. Ka digtoonow markaad internetka ka iibsanayso irbadaha miisaan dhimista. Inkasta oo ay jiraan xeerar adag, waxaa jira bixiyayaasha badan ee internetka oo bixiya irbadaha miisaanka luminta ama alaabada la midka ah. Laakiin halkan taxadar ayaa lagula talinayaa. Claudia Mithael, khabiir ku takhasusay dawada Stiftung Warentest, ayaa si cad uga digaysa iibsashada irbadaha dhimista miisaankaaga adigoo isticmaalaya internetka. Badiyaaba waa been abuur, ayay tiri. Waxyaalahan been abuurka ah waxaa laga yaabaa inay ku jiraan walxo firfircoon oo khatar ah ama qiyaaso khaldan, kuwaas oo keenaya khataro caafimaad oo weyn. Sanadkii hore, tusaale ahaan, mas'uuliyiintu waxay soo saareen digniino ku saabsan qalimaanada Ozempic ee been abuurka ah oo ay ku jirto insulin halkii ay ka ahaan lahaayeen walaxda firfircoon ee semaglutide. Jahwareerka noocan oo kale ah wuxuu noqon karaa mid nafgooyo ah. Waxa kale oo jira badeecooyin badan oo suuqayaal kuwaas oo sidoo kale ballan qaadaya in miisaanka lumay, sida Lemonbotle, xalinta duritaanka ee soo saaraha Kuuriya. Alaabtan waxaa loogu talagalay in lagu milmo kaydadka baruurta, tusaale ahaan gadhka hoostiisa. Laakiin halkan sidoo kale, maamulka daroogada Swissmedi ayaa ka digaya, xalku inta badan wuxuu ka kooban yahay waxyaabo aan ahayn kuwa la sheegay, waxaana loo mamnuucay sidii qalab caafimaad oo aan la ansixin. Jarmalka, sidoo kale, mas'uuliyiinta ayaa ka fekeraya